Shirkadda Dahabshiil Group ayaa si ballaaran uga qayb qaadatay shirweynaha qurba-joogga Somaliland oo ka furmay magaalada Hargeysa. Waxaana shirkaasi ka qayb galay qurba-joogga kala duwan oo ka kala yimi waddamo kala duwan oo dunida ah. Waxaana shirkaasi lagu falanqayn doonaa inta uu socdo horumarka iyo weliba doorka ay Somaliland ku leeyihiin qurba-jooggu. Maxamed Cabdi Samed maareeyaha guud ee xawaalada Dahabshiil oo halkaasi ka hadlay ayaa ka warramay sida shirkadda Dahabshiil Group ay uga qayb qaadatay shirweynaha qurba-joogga iyo sida xawaalada Dahabshiil ay udubdhaxaadka muhiimka ah ugu tahay qurba-joogga iyo qolqol-joogga. Sidoo kale maareeyaha ayaa waxa uu tilmaamay in qurba-jooggu ay door muhiim ah ka qaataan horumarinta bulshada reer Somaliland. Shirkan iyo nidaamka maaliyadeed waxay udubdhaxaad u yihiin lacagaheena diaspora ay soo diraan ay ku caawinayaan dadkooda. Historiga haddaad aragto diaspora ay ka geysteen roolka ay ka ciyaareen dib u dhiska dalka waxaad la socotaan dalkeena markay dhibaatooyinka ka dhacdeen ummaddu qaxday roolka ugu weyn ee xawaaladu ay ka ciyaareen sida xawaalada Dahabshiil dhabarka ay u xidhatay intaa horumarka ay dadka soo gaarsiisay waxaas ka lahaa runtii diasporaha oo ku amaanan sidii la socotaan bulshadeenu waa dad jecel wadad wax isu tara oo isku xidhan taa iyadoo ka faa'iideysanayaan waa annaguna xawaalad ahaan aanu noqonay bridge-kii u dhexeeyey diasporaha iyo inay waddankoodii dib u dhisaan runtii diasporahu ammaan badan bay mudan yihiin oo wasiiradii ugu horreeyey iyo martidii ay sheegeen ka hor u hadlay lama soo koobi karo roolka ay ku leeyihiin dib u dhiska dalka runtii ganacsiyo aad u fara badan ayay ku soo kordhiyeen oo hoteeladan oo kale ka mid yihiin waxa kaloo ka mid ah restaurantada iyo hudheelada la soo yimaado oo kaalintaas ay muhiim u tahay bulshada kobaceeda iyo horumarka waayo qurba-joogtii kale ayaa ku soo hiranaysa inay timaado oo ka qayb gasho marka facility-ga caynkaas oo kale laga helo waddanka marka sida Dahabshiil Group ahaan waxaan idiin sheegaynaa inaanu arrintaas oo kale aanu u fududaynay qurba-joogtii iyadoo ay ku adkayd xaalado adag la soo maray COVID-19 la soo maray dadkii lacag hadirsan kari waayeen waxaanu suurto gelinay inaan la jaan qaadno oon u facilitate gareyno teknolojiyadii ayagoo guryahooda jooga ee lacagta ka soo xawlanayeen marka waxaan idinku bishaaraynayaa in maanta shirkadda Dahabshiil Group ay la jaan qaaday teknolojiyadii dadkeenu qurbaha iyagoo guryahooda joogaan applicationada ama dahabshiil.com ay kala soo degi karaan applicationka ay lacagtoodii si fudud ugu soo dirsan karaan intaa waxaa ku dheer si aanu horumarka mar walba shirkaddu uga qayb qaadato maadaama shirkadda aasaaskeedu ku dhisan yahay diaspora waxaanu u hirgelinay shirkado kale oo badan oo maaliyadeed oo waddanka horumarkiisa ka qayb qaata waxaa ka mid ah Dahabshiil Bank International si uu dadkeena u maalgeliyo oo wax ugu taro waxaanu si gaara ugu xusnay diasporada inaan u furray akaano kuwoodii ay qurbaha ku haysteen lamid ah oo diaspora account la yidhaahdo oo ku xidhan kaarar mastercard oo meel walba ay u safraan ay adduunka lacagtoodii kala bixi karaan sidoo kale bankigu wuxuu u maalgelinayaa ciddii diaspora ama loo kale u baahan in maalgashi loo geliyo businesskooda ama guryahooda ay dhisanayaan oo si tayo leh shirkadu u dhisi doonaan haddii la yidhaahdo